مسؤولينta maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle oo ay weheliyaan wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa maalinkii shalay ahayd waxa ay dhagax dhigeen garoon diyaaradeed oo Muqdisho loo sameeynayo kaasi oo laga hirgelinayo deegaanka Maaxay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe haddaba markii garoonkaasi la dhagax dhigay waxa baraha bulshada ku soo badanayay isweydiimo ku aadan halka garoonka laga dhisayo oo ah markaasi dhul ka tirsan Hirshabelle iyo sida ay ku suurta galayso in magaalada Muqdisho garoonkaasi ay yeelato waxaana soo baxaya weydiimo siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabelle iyo kuwa gobolka Banaadir qaybtood ay isweydiinayaan oo ku aadan mashruucaasi dad badan ayaa isweydiinaya sababta garoonkaasi loo geeyay meel 45 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya kana baxsan xuduudda gobolka Banaadir halka sidoo kalena mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle ay qudooda weydiinayeen xildhibaan Maxamed Colow Yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray hadal celinta ku aadan garoonkaasi laga sameeynayo deegaanka Maaxay waxana uu sheegay in Maaxay ay ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaasina aanu jirin afti loo qaaday oo lagu siiyay in ay kamid ahaato gobolka Banaadir waxana uu markaasi baraha bulshada uga raay dhiibtay dad badan oo ka tirsan Soomaalida qaybaheeda kala duwan haddaba aan idin xusuusiyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Goodlaabe Xuseen ayaa maalinkii shalay ahayd markii halkaasi uu tagay waxa uu sheegay in garoonkaasi shacabka markaasi Hirshabelle iyo dawladuba ay markaasi siiyeen maamulka gobolka Banaadir in ay ku dhistaan garoon Muqdisho laga xukumi doono kaasi oo markaasi laga dhisay deegaanka Maaxay madaxweyne ku-xigeenka ayaa ballan qaaday in ay ka celin doonaan inay dadku deegaansadaan si loo fuliyo dhismaha garoonkaasi wax kasta ee horumar u ah ummadda Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaayo magaca madaxweynaha iyo magacayga iyo guud ahaan labada gole ee dawlad goboleedka Hirshabelle iyo bulshooyintaba waxaan raalli ka nahay aeroboor caalamiya in laga sameeyo Hirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe degmada Warshiiq inuu qabtaan raalli ka nahay waana soo dhaweynaynaa waxaana naga go'an haddaan nahay maamulka iyo bulshada inteeda kaleba inaan si maaragtay mutadawacnimo aan ku shaqeyno Cali Goodlaabe Xuseen madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay markaasi sahaminta mashruuc garoon Muqdisho ay leedahay loogu dhisayo deegaan hoostaga Warshiiq oo markaasi lagu magacaabo Maaxay waxa kale xusid mudan in warbaahinta qaar ay يعني sheegeen in deegaanka laga dhisay garoonka uu yahay duleedka magaalada Muqdisho hase ahaatee waa uu ka baxsan yahay xuduudda gobolka Banaadir waxana uu ku yaala duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe